لماذا يدك مساكينتها وحي gaar laha meesha ka baxay arintaas marka wasaarada u xilsaaran dawladana sideedaba hay'adaha fulinta u xilsaaran in ay dadka wax gaarsiiso iyadoo ka shaqeysa bulshadeeda iyo wixii suuragal ah diyaaradii timid Garowe waqti aad u dambeeya ayaa lagu soo wargeliyay dawladda oo si waliba aanan rasmi ahayn laakiin waxaan markii la codsaday in la dejiyo oo dawladdu la wareegto wasiirku hadda waa ay maqlayaan حتى مركو دجيي waxa ka dabeeyay dad dhahay anaga si gaar nagu socoto waxaan inaan anagu qaybin saas ma wasiir waxaan ku yiri arintaas hadii dawladnimadu ay xudhimaysaa wixii lagu keenay dadku si ugu kala baahi badan yihiin u geey midan hadda timid Boosaaso dabcan aan waan maqnaa laakiin markay waxa dhaceen madaxweyne ku-xigeenka soo wacay wasiiradii aan soo wacay dadka oo dhan wax bin aadan oo ka warqabay male oo dawladda horena dawladda Puntland waxay u codsatay diyaaradaha noocaas inay dambe ku jireen tani waxay sii dheeraysiisay in khilaaf habkii maamulka ah ay ku keento oo dhibaatayadana la timid runtii wixii halka ka dhacay waa ka tacsiinay waana ka xumahay waxaan Ilaahay uga baryayaa intii ku dhimatay inuu naxariista janno siiyo inta ku dhaawacmay u booga dhagayo khaladka dhacayna uu mardaba dib u dhicin waxa sababay oo arinta dhacayna in aysan mardaba soo noqon oo waxa qofku uu wax ku yahay oo mas'uuliyad ama raashin loo dhiibay ama awood loo dhiibay ay tahay dawladnimo dadku halkaas iska maraa ilaa xilligu dhiibay maalinta xilligu dhiibay haddii adiga tiraahdo dawladnimadii aad xilka ku timid ma ilaalinayo ogow adiga un baa gacantaada isku dilaa waana khatar marka waxaan u baahanaa inaan dawladnimadeena ilaalino kala dambeynta iyo dawladnimada ayaa danteena ku jirta dadkan aan aragnay filmadooda sida kaliya aan wax ku qaban karno waa inaan dawladnimo ku gaarno haddaan caalamka wax ka codsanayno haddaan annagu wax haysano haddaan bulshadeena wax ka ururinayno waxaan u baahnaa authority lagu aamino oo lagu dhiibo haddaynan taa lahayn de shakhsiyaadka halka taagan oo badan oo ka wada danqanaya oo waxba qaban karin baa la mid noqonayna marka dawladnimada aan samaysanay ilaalin bay nooga baahan tahay iyo inaan maaragtay danaha aan dawladnimadu macnaheedu waxa weey inaan danaheena ku qabsano marka Ilaahay idankiisa waxaan rajaynayaa taas hadda inaan ku dheeraado ma rabo laakiin waan baraarujin bay iga tahay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa culumada oo mar walba u taagan arrimaha khatarta ah markay soo baxaan sidii kaalintooda u qaadan lahaayeen oo haddana aan rajaynayo inay maaragtay guddiga halka jooga ay ka mid yihiin oo ay qaybtooda qaadan doonaan waxaan kaloo rabaa inaan halka baaq uga diro bulshada ku dhaqan dibadda ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland waxyaabaha si gaar ah qof walba reerkiisa u taraay marka laga tago waxaan u baahanahay inay ka qayb qaataan oo aan rabaa inaan caawa halka uga dhawaaqo sanduuqa abaaraha lagula tacaalayo oo aan rabo inuu noqdo sanduuq dawladda iyo bulshada u dhaxeeya dabcan guddiga iyo habka loo maamuli doono dib baa laga soo sheegi doonaa guddiga hadda dawladdu ay magacaawday kaliya kuma koobnaan doona guddiga culimada iyo ganacsatada iyo bulshada rayidka ayaa ka wada qayb gali doonto sanduuqaas dawlad ahaan iyadoo waxa hadda aan qabanay ayaan sheegnay ayaa wax soo socda si loo qabto sanduuqaas dawladdu waxay ku shubaysaa oo ku bilaabaysaa lacag 1 milyan inay dawlad ahaan ay ku shubto budgetka dawladda lagu shubo waxaan rabaa cid walba oo Soomaaliyeed inay sanduuqaas wax ku soo kordhiso sanduuqaas wuxuu noqon doonaa sanduuq shafaafa dawladdan aan mas'uulka ka ahay waxa looga bartay maaliyad hufan waxaad ogtihiin maalin dhaxdaas canshuurta aan kordhinay waxaan ku soo kordhinay in lagu sameeyo infrastructure-ka indhiina macalinku sideedii baa loo fuliyay waxaan qabaa inaan kalsooni qaadaan shilin abaar ku lagu shubay wallaan dawladda wax kale loogu qabanay waa ogaanaysaan waxaan rabaa inaan ii sheego lacagtii 2 sano ka hor qardho loo ururiyay culimadu waa joogtaa oo dibadda laga keenay qayb ka mid ah wax lagu qaban ilaa hadda waxay ku jirtaa account Sheekh Maxamed Soosaas ma lacagtii loo ururiyay meesha la yiraahdo la fagoray ilaa hadda account bay ku jirtaa cidna ma taaba iyadoo baahiyahaas aan sheegay ay jiraan marka waxaan rajaynayaa in dadka dibadda jira iyo dadka gudaha jooga ay haystaan ay sanduuqaas lacag soo shubaan si loo helo shaqo qorshaysan oo meel mari karta haddii shaqadu kala yaacdo oo nin walba qoyskiisa wuxuu tari kara taro iyadoo taarsi ay joogsaneen oo dabcan wixii waajib gaar ku saaran afulinaysid laakiin waxa aan anaga taarget gareynaynaa waxa weeye dadka aanan tabarta lahayn taageero faamilina aan haysan oo sida dadkii hadda aan arkaynay xoolihiina dhaafeen maciin kalena aan lahayn odayaal 80 jir ah baad qoysaskaas ku tiirsanayeen
meelo cararaan ma leh meelo ciirsadaana ma leh marka waxaan u baahannahay inaan kaalintaas annaga aan gudanno waajib diini iyo mid dowladnimo weeye waxaan rajaynayaa arrimahaas inay noqdaan arrimo runtii aan u wada istaagno oo si qurux badan ay u dhacaan culays kasta oo jira waxaan rajaynayaa inaan ka gudbino annagoo ilaahay kaashanayna awoodeennana midaynayna dowladda dhexe ee dowladda federaalka iyo dowladda puntland ka wada shaqayn doonaan si dhow ayay wada shaqaynayaan arrinta boosaaso markay dhacday dabcan madaxda dowladda oo dhan waa la hadlay leebel kasta leeyihin mudane cabdiraxmaan shuquur gargaarka qaabsala aan la hadlay wasiiradda gargaarkaan la hadlay ra'iisul wasaarahan la hadlay madaxweynahan la hadlay runtii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aad bay uga tacsiyeeyeen wixii dhacay aadna waa uga xumaadeen waxay ka warqabeenna male nasiib darro inay sidaas wax ahaayeen maxaa yeelay haddii xadgudub dowladeed u dhaco annaga cidda aan afka ku leenahay waxa weeye inaan dowladdii fulinta ahayd inaan idhaahno war waxaas maxay ku dhaceen dabcan baarlamaanku oversight buu leeyahay shaqadiisa cidna kuma haysato laakiin arrimaha fulinta hadday wax dhacaan qofkii ugu horreeyay aan wacay wasiiradda ahayd iyo mudane cabdiraxmaan intaan ra'iisul wasaaraha la hadal markii xogta ay soo gaartay runtii dhibka badneed oo xanuunka badneyd oo aan arkay inay arrin aad u kharaara yahay laakiin wax kasta qadar ilaahay bay ku dhacaan waxaan u baahannahay inaan daba qabanno waxaas wax lamid ayn dib u dhicin khalad bin aadan weeye waa ka dhacaya oo ma dhahayno muxuu u dhacay inkastoo xisaabtan kuu fiican yahay laakiin duruufta soomaaliya aan ku jirno ayaa waxaa keenaysa wax badan in indhaha laga laabto oo wax walba sideeda aan loo dabagelin laakiin inaan hore u soconno xaaladda maanta nagu furan ee abaareed mid kale kuma dari karno cid kasta oo ku fakaraysa inay wax kale qodqodo runtii waa nasiib darro waxaan iyagana ka codsanayaa media iyo dadka warbaahinta inay u duwaan awooddooda sidii ay ugu soo jeedin lahaayeen bulshadooda inay iskaamaystaan marxaladdan ma og tahay macmil in bangiga salaam banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixiraaca geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada salaam banki abka Barafo si fudud oo dib yar uga dhex gooso tigidh shirkadaha socdaalka ee gobolada dalka haddii aad rabto inaad abkan aad hesho teleefankaaga gacanta gal qaybta Play Store-ka ama App Store-ka ku qor oo ku baadh magaca Barafo la soo deg oo ku shubo moobilkaaga wixii caawimo ah fadlan soo wac 2 eber ama qaybta offline-ka xidig 2000 afar gees